dalka Maraykanku waxa uu haatan iyo afartameeyadii qarnigii hore cududda ugu weyn ciidan ahaan caalamka waxaana uu kaalinta koobaad kaga jira dhinacyada kala duwan ee hubka iyo waliba diyaaradaha dagaalka arrimaha uu sida gaarka Maraykanku uga duwan yahay waxa kamid ah diyaaradaha dagaalka ee qaarkood aan xogaha badan ba laga haynin sanada ka hor waxa soo baxday helikobtarta cajiibka ah ee fulisa hawlgallada qarsoodiga ah diyaaradan oo dadka ka warqaba ay u yaqaanaan magacyada Steely Hawk ama Black Hawk ayaa ah mid wada ashqaraara balse magacyadaasi ayaan dhab ahaantii ahayn kuweeda saxda ah ee ay ku soo baxday amaba ay ku hawlgasho xogaha diyaaradan ayaa banaanka markii koobaad yimid sanadkii 2011 kadib markii uu Maraykanku hawlgal ka fuliyay dalka Pakistan kaas oo lagu qaarajiyay hogaamiyihii kooxda Al-Qaacida Osama bin Laden weerarkaasi oo ay ka qayb galeen laba ka mid ah diyaaradahan qarsoodiga ah waxaase la rumaysan yahay in hawlgallada diyaaradani ay samaysay ka horreeyeen dilka Osama bin Laden balse aanay ka warqabin dadweynuhu iyadoo sidoo kale la sheego in hawlgalladii diyaaradan lagu fuliyay ay dhammaantood ahaayeen qaar guulaystay diyaaradan ayaa ah mid si heersare ah loo nashqadeeyey iyada oo la mariyey rinji madow isla markaana meesha laga saaray guux iyo weliba jabaqda ay sameeyaan marawxadaha helikobtartu waana ta ka dhigtay mid aanay ogaan karin cidda weerarka lagu yahay ilaa ay ka dul degto taas oo ka dhigan in aan la arki karin leydhkeeda lana maqli karin codkeeda isla markaana la heli karin raadaarkeeda diyaaradan ayaa leh caga adag oo fidsan isla mar ahaantana si fudud u qabsan karta halka ay ku degto diyaaradan qarsoodiga ah ayaa qaadi karta ilaa 12 qof oo rakaab ah iyadoo ay ka shaqayn karaan laba duuliye tirada rakaabka ayaa loo badiyey si ay u qaadi karto ciidamada kamaandooska ee fulinaya hawlgallada halista ah ee laga fulinayo goobaha aadka u khatarta ah waxaana guud ahaan u dhan wax kasta oo looga baahnaa fulinta hawlgallada qarsoodiga ah xilligii 2011 diyaaradan fulisay hawlgalkii lagu dilay hogaamiyihii Al-Qaacida dawladda Pakistan ayaa sheegtay in aanay ka warqabin inay hawadeeda soo gashay taas oo muujinaysa sida aan loo heli karin raadaarkeeda dalalka Shiinaha iyo Ruushka oo ah laba dal oo tartan weyn ka dhaxeeyo ayaa isku dayaya in ay helaan xogta diyaaradan qarsoodiga ah si ay u alifaan diyaarad la nooc ah oo ay kaga hortagaan weerarada suuragal ah in uu Maraykanku ka fuliyo dhulka danaha labadan dal ay ka yaalaan